السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبان دين سلام يا دمانتين بملكستا إيمانو باجوكتان بوانو كالتونا وعندكم سلام يا سلام تسلام وقالسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن آدي برنامج ير أو آدي كوبان أيان هالكن إذا كسو قد بينايا هبين دويتولي بوحان سو قد برنامج أن كجاه اللي إن دويعادها الصومالي دا قار كودا يابك بدن لأيجا يابيي markaa dabacadaha qaar ama behaviorka qaar aad iyo aad kaaga yaabiyey runtii oo aniga aad iyo aad iga yaabiyey ayaan bulshada la qaybsaday habeen dhaweyd hore. waxaa igu soo noqday yacni information aad iyo aad u fara badan iyo dad aad iyo aad u fara badan oo barnaamijkii aad iyo aad runtii ula dhacay uga helay. qof walba uu ku leeyahay wallahi ana igu dhacday walaalay waa runay waxa u baahan tahay bulshadu in waxyaabaha caynkaas laga wacyigeliyo waayo horta qof walba markaad adigu meel aad taagan tahay ee laga hor yimaado ee su-aal lagu weydiinayo ku saabsan adiga noloshaada ama personal lifekaaga ku saabsan ama wax ku private ah runtii jirkaagana wuu diidayaa mana ogolid inaad ka warantid. hase ahaatee dadka qaar baa mataqaanaa very aggressive ah oo marka aad weydiisid su-aal privatekiisa ah aan caruurtaada ninkaaga maxaad ka shaqaysaa maxaad qabataa xagaad ku nooshahay maxaad qaban jirtay qolamaa tihiin ninkaagu waa qolama maxay tahay waxyaabo caynkaas oo kale ah. ninkaagi miyaa kala tagteen mise waa wada joogtaan miyaa isfurteen naag kale miyuu guursaday maxaas kaluu leeyahay muxuu qabtaa maxay tahay waxyaabo caynkaas oo kale ah marka lagu weydiinayo qof walba horta runtii waad diidaysaa qofna ma ogola inuu su-aal caynkaas oo kale ah kaaga jawaabo ama uu kula qaybsado ma jecla. hase ahaatee dadna waa very aggressive oo markiiba waxay ku odhanayaan none of that's your business kaagama jawaabi karo maxaa kaa galay maxaa kaaga jira adigu meel nolol lahayn waa nolosha bini'aadanka adigu interest ugu tahay waxaad nolosha bini'aadanka aad u xiisaynaysaa inaad mataqaanaa nolosha bini'aadanka aad wareysatid iyo waxyaabo kale fara badan oo caynkaas oo kale ay qof dadka qaar ay ku odhanayaan. dadka qaarna waxaweyaan iyagoo ku ixtiraamaya oo xishoonaya oo aan yacni waxba ku odhan karaynin ayay runtii kaaga jawaabayaan su-aalihii oo dhan oo su-aalihii oo dhan ku siinayaan. markaas dad fara badan oo aad iyo aad u fara badan ayaa damqaday oo ila soo xidhiiday oo igu yiri ana taasaa igu dhacday ana taasaa igu dhacday ana taasaa igu dhacday I know in ay mataqaanaa waxaan wax dhacay yihiin wax jira yihiin edeb darrada iyo behavior xumada iyo akhlaaq xumada lagu socdo in fara badan bulshadeena ka dhex jirtay aan isku qaban weynay iska wacyigelin weynay isaga sheegi weynay waryahay waxaanad ogolayn qof bini'aadan ha la ogolaan ku dayni ka jooji. runtii aan aad iyo aad u jecelayn dad fara badan forward ay soo galeen oo dad fara badan ay mataqaanaa ila soo xiriireen iyo soo sheegeen waxyaabihii ku dhacay oo aan idila qaybsan karo adigu ilaa iyo 3 qodob oo runtii aad iyo aad la yaab u leh. inan 2 hablood iyo inan wiil ayaa mataqaanaa ila soo xiriiray iyo sheegay marka runtii waan ila qaybsanaya iyaga waxa ku dhacay waan ila qaybsanaya. su-aalahaasina waxa weeyaan waa su-aalo la yiraahdo su-aalo edeb darro su-aalo stupid su-aalo caqli gaab oo mangaab su-aalo aanad ka fiirsan su-aal wax allaale wax kaaga quseeya aanay jirin inaad qof bini'aadana mataqaanaa aad damacdid inaad noloshiisa isla markiiba wax ka ogaatid even xitaa qofka bini'aadanka hadda taqaanid inaad markiiba noloshiisii daf tirahdid oo istiraadid qofkan yeelkadiisa barxo iska weydiis runtii oo wax aad iyo aad looga fiican yahay waa maangaabnimo runtii. marka qofkii ugu horreeyay inankii ugu horreeyay la soo xiriiray ila qaybsaday maxay tahay su-aashan waxa weeyaan waa inan ku nool dalka Yurub ku nool meeshuu ku nool iyo waxba kama sheegayno waxna kama facloonayno laakiinse barnaamijka markuu arkay buu inala qaybsaday qisadiisa ku dhacday. wuxuu yiri magaalada aanoo maraya ayaa wuxuu yiri iga soo horbaxay buu yiri nin iga soo horbaxay oo aanan long time arag magaaladan ku wada noolahay dad yacni wax isku qabtay ama wax isugu yimi maanan ahayn dad caadi baanu ahayn runtii. wuxuu iga soo horbaxay wuxuu ninkii intuu naxay oo istaagay yacni qofka bini'aadanka xitaa dad mataqaanaa aad neceb tahay oo qofka bini'aadanka aanad arki karaynin oo qofka bini'aadanka markaad aragtid aad sas qaadaysid yacni xitaa even lama muujiyo you don't show lama muujiyo ma fahantay. waxay ka tahay boolisiga ayay ka mid tahay iyo ilbaxnimada ayay ka mid tahay inaad qof bini'aadan even xitaa haddaad diidan tahay aanad qofka bini'aadanka u muujinin waa ku diidan oo kale aanad u muujinin aad mataqaanaa isaga dhaqantay si qof caadi oo normal ah mataqaanaa iska dhaaftid ayay ka mid tahay. marka wuxuu yiri ninka markuu iga soo baxay isla markii wuxuu yiri sidii qof shoog qabsado kale naxo kale ayuu isu taagay yacni wuu u talagalay inuu tuso
inuu yacni dee qofkan bilaadanka uu maalinta hadda noloshiisa ka qaso ka xumeeyo ninkii fakaro isweydiiyo waxyaabo fara badan ayuu ugu talagalay wuxuu yidhi iga soo baxay ninkii wuu naxay wuu yidhi istaagay yacni sidii qof yara fageegsan oo kale ayuu isu taagay dabeetana wuxuu igu yidhi allah war maadigiibaa markaasaan ku yidhi haa wuxuu yidhi oo niyo miyaanad dhiman wuxuu ninkii hadalkii siduu u duulay buu yidhi halkaa wadnaha igaga dhacay waa naxay yacni qof dhan oo nool oo taagan oo soconaya ma kasoo horbixi lahayd ma u quuri lahayd ma ka odhan lahayd miyaanad dhiman ma ka odhan lahayd runtii waa wax aad iyo aad loola yaabo marka wuxuu yidhi allah waryahay maadigiiba oo niyo miyaanad dhiman wuxuu ku yidhi say u eeg tahay aniga noole taagan kula hadlaya maxaad ku keentay dhimashada meesha wuxuu yidhi waniyow beri hore ayaa waxa laygu yidhi ninkii hebel uu geeriyoodo beri hore u dhintay marka meelahanba kamaan filayn xukuumadii beri hore daniyo inaad geeriyoto faatixadanba kuu soo maray waxaan islaa ninkii ilaahay u naxariisto oo soodiga niyo soconaya nool marka wuxuu yidhi ninkii aad iyo aad baan ula yaabay sheekada ma fahantay aad baan ula yaabay runtii horta halkaasaan sii dul taagaya waxay ka tahay edab daro waxay ka tahay anshax xumo waxay ka tahay yususnimo waxay ka tahay xaasidnimo waxay ka tahay uquuriwaa waxay ka tahay qof dhan oo bilaadan oo ilaahay nafkashado soconaya inaad intaad kasoo horbaxdid ku tiraadid miyaanad dhiman maxaaba keenay miyaanad dhiman ood aragtaaba inuu qofkii nool yaho soconayo kaa soo horbaxo ku salaamee ma gowsbaa yaa ma gowsbaa ma dariinbaa miyaad hurudaa ma sariirtaadi waad hurudaa magaalaad maraysa waad socota adugu miyaad dhimatay waa adigan socdeen noole qof dhan oo nool oo soconaya markaad kasoo horbaxaysaad leedahay miyaanad dhiman maxay tahay adduunka xagee kaga taalla waxaa aad iyo aad loola yaabo marka runtii inankaasi arrintaa ula qabsada aad iyo aad baan ula yaabay wuxuu yidhi ninkii waan shoogay waan naxay saasaan ninkii ugu dhaagay waxaan ku yidhi buu yidhi mee weli calafkaygii adduunyada waa korkeeda waa saaranya muu kasoo dhammaan aadna wad mahadsantay wuxuu yidhi runtii horaan isaga dhaaf marka habeenkii dhaweyt holle markuu su-aalaha yaab kale aan dadka la qaybsanayay ayuu inanku aad iyo aad u qoslo markaasuu ila soo hadlo markaasuu ii sheegay uu yidhi arrintaas aniga igu dhacday waa runtii oo waxa waxay mar walba maskaxdeeda kusoo noqnoqotaa qof dhan oo nool oo soconaya intaad kasoo baxdid ma ku odhan kartaa miyaanad dhiman dee waa su-aal aan meeshaba qaban runtii miyaanad dhiman waana imika adoo nool oo soconaya kaasoo baxo ku dhada hay heblay ma fiicantaad ugu talan nabad aan ku dhada oo miyaanad dhiman what waxaad iyo aad loola yaabo runtii mushkila weeyaan mushkila waxaad iyo aad loola yaabo gabadh baa iyaduna ila soo xidhiidhay gabadhaas UK bay degan tahay gabadhaas iyaduna habeenkii dhaweytalo markii barnaamijka daawatay ayay mataqaanaa ii soo dirtay arrinta mucjisada heeyadan ku dhacday waxay tiri magaaladan waxay tiri marayay ninbaa waxay tiri xaas baan ahaa ninbaa heer baan lahaa heer baan gabadh nin baan isqabnay uma beedhada walaali dad fara badanna way ugu qabsadeen kelmaddan isqabitaanka ninkay gabadhu ay isqabaan dad fara badan bay ugu qabsadeen weliba rag fara badan bay ugu qabsadeen waxay ugu yidhaahdeen gabadhaa la qabaa gabadhaa la qabaa ee ninku maxay tahay ninka kuma odhan kartid marka I don't know sida loo dhigo ma garanayo anyway gabadhan waxay tiri xaas baan ahaa family ahaayeen nin bay dee ay wada joogeen ay isqabeen say doonto waa haatay dhinaca doontaan u qaado nin bay wada joogeen ay isqabeen kabacdi ninkii ayaa waxay tiri aanu kala tagnay ninki markaan kala tagnay waxay tiri ninkii adigu muddo 4 bilood gudaheedaba ninkii dee magaaladu uu meelayso gabadh kaloo helay oo reediyo taagan oo markiiba xaysato daftoo dafa dabeetana gurigu gala uu hooyday gurigaas u galay waxay tiri aniga markaa dee wariguma seegana waan ogahay ninkii inuu gabadh guursaday waa ogahay ninkii inuu guri kala galay waa ogahay waxaasoo dhan waan ogahay bay tiri aniga wariguma seegana ninkana waxay tiri maxay tahay waxaan wada nooleen bay tiri 11 sano ayaan wada nooleen bay tiri waxaan u hayaa bay tiri 4 caruur aan u hayaa dee dad 11 sano wada noolaayo 4 caruur ay isulo intaas dhan soo wada joogay runtii waxay dee mudan yihiin inay isqadariyaan inay is ixtiraamaan iyo wanaag fara badan oo kale ay mudan yihiin meeshina awlaad baa taala awlaad baa meeshina taala mar hadday meeshii awlaad taalo waxa weeyaan mataqaanaaye kale tagan iyo ficiltankan iyo meel kalu galay waxyaabahaasoo dhan waxa weeyaan waa waxyaabo ka waaweyn anyway waxaa hadalkay ku daayin waxay tiri gabadh baa markaa iga soo horbaxday bay tiri ninka maxay tahay ay adag yani isku qabiilo yihiin laakiin aanay family ahayn laakiin ay isku qabiil yihiin even dumarka ninka hadday isku qabiil yihiin gabadha ficil bay la gelayaan
ficil bay la geliyeen dagaal la yiraahdo waxay la geliyeen xumaan bay la geliyeen waxay doonayaan si walba ay ahaato inay niyadda ka dilaan kuma xisaabtamayaan gabadhani ubadkiini bay haysaa ubadkiina waxa la sheeganaya wax la leeyahay ubadkayagii waa lagu abtirsanayaa oo nala qabiil baa la leeyahay hooyadii dhammeeda dhashayna aad iyo aad waxa loo jecel yahay in niyadda laga baastooladeeyo in la dilo in mataqaanaa meel xun ay ku dhacdo inay waarato hadda la yiraahdo gabadhii waba waarato meel xun bay ku dhacday farxad maryaha tuuranayaan kulligoodba waxa weeyaan way dabaaldeg weyn marka waxay tiri gabadhan waxay ahayd beetay gabadh ninkayga ay isku qolo yihiin laakiin family close maahan laakiin waa isku qolo gabadhi way iga soo baxday bay tiri gabadhi waxay tiri iska hortaagtay waxay u tiri gaga bilowday hadda eeg waa hooyo laga tegay waa hooyo 4 caruur haysa waa hooyo qurba joogta waa hooyo daalan waa hooyo ninkeeda intuu ka cararay naa kaloo iyaduba intaanu ciyaal haysato nin kale ka cararay gundhada u galo la fadhiya ma fahantay intaasoo dhan ma qiimay waana gabadh dumara oo ruux dumara oo iyaduba intaa gabadha haysata inteedii in leeg ayay iyaduba haysato dhinaceedu haysata oo la dabaaldegaysa laakiin inteediiba inta ilowday oo shaarkii soo dhigatay ayaa waxa qaaday shaarkii ninkuu ina adeerkaybu ahaaye maxay tahay gabadhay watan uu ka tegay waa inaan qalbigii niyadda gabadha ka baastolayaan ka dira waxay iga soo baxday waxay ku tiri لا ينفع عنتها عرضي جورن وفي عينها إن حيث إن هذا إن وذنك كثير عارف كي نبع دم ماضي وحب ماله إن ده إلهي بقى قدري إلهي وحو قدري ده مال لو ما تشوف شنكر وحنقول ويترها أنتوا وادا ها إلهي وحو قدري مال لو ما تشوف شنكر أنتي كم تشوف سنة هذا نحيو تلويتري قبل بوكور سده حنقول ويترها حورر عينه وحيتري كيد كادر لإيجو طبيعتها يقرحها يوناجا ما لو بيقول كذا نوع سنتو إلها بنقول دارتي وانو إن ترى نعطي كرنا يسوي واحد عندك ورث على إنك يا فرحة كذا عايز صدق فرح سنة جورج كنا لا صدق ها إلها بنقول دارتي واحد ترى نجي بابا يا ابن اسود قدشينا وكنا لنا يارهن يا مركز واحد ترى تنسى يا جم قصلي كنت بنقول بيتي لهي حوسي هذه ها ما إله وسيادي لكن والله قبل ما عرفت قبل بقولش الله إحنا سير قبل ده منها فرحة بالقصة مية قبل حيث ما بقولن كيس قبل ما حسوا قبل ما ورشد بنت الجديد قبل الله ناك تقرح بدنا ما شاء الله تبارك نايا نكوا بالله يا أنت سايقت عادي الله لا يابو مركا واحد القلب الدل نية شب يا قبل عني ده كسي بس طالده جورج مركا تكتم تقنا برايا كل عادي أيوم بيك عهد بيتري وحادي هذه جايبي وطرنتي إن دمر ليش حاولين كبس مديرة ما فهمتين إن قبلنا عيال بيدين هاي سبتات وحي هيدنا إكتان وهالكي دق إن أفوي وحي هيدنا إكتان قبلنا أوبتك أيدين كورني سيدين هاي سوي أوبت كان حد هو يدي على أحميسان أما إيش فكرته أما أي مرحون كدعو ودعمنا هوين أوبت كانين ودن تال ميان وحبين قنين أنتي عادي متقن وناكسن معهم إن تاسنا قصة سينا لقب سترونتي أنا عادي أدوف يعني كوانتو دمرو وحيابا سميسان كوانتو تاسنا وقتها إن كان أيضا إلى صح هذا الشيء أو متقن هاي أرنتا ما كعرفت يعني إلى صحيح ده قفك بالعادن كاي شركي سوحو قرحنا يوحو سمينا أساق أي حرقة ما فهمتي أما قبضو هايس عدايسو أما قبضو هايس مدبيسو أما إله بان كل رأيت عيد بنانك تعالى أنت قوشة كرك قبل جد بهايس كمرسو أو مرايد هاي صورتك هايس ترى سنة كقرب طاي أي اللي شرتها شخص قبل عادن كأي اللي شرا لكن سينجا فعلين منه غفران طاي ما فعلين إنه غفران ويقف كاسي سجل سلا طار بدأ إنه سايسو كيسيو إن أنت روح تري إن آدي مذوبان ها بتري شركة يجوا مذوبها بتري وحنا هادتك ولو dadka qaarna wax lagu tilmaamo maarin qaarna wax lagu tilmaamo madow daaga qaarna wax lagu tilmaamo casaan qaarna wax lagu tilmaamo cadaan anigu waxaan ahaa madow daaga abanaabay gabadhan marka waxay ku dhacday way tii cuqdad yaraan guriga markaan mataqaanay aan joogay qof walba ay go'an jiray watan tii madowid heerka tii madowid hada hooyada iyo family waxay go'an jiray bay tii na tii madowid maad baa go'an jiray magacayga waa leeyahay marka waxay ku dhacday way tii cuqdad تيم مدويد بيقول على واحد دوتنا إن أنت أدوكو حين هذا الكود إن أنت ويس عطايسة إن أنت ديرك ويس كقاعدة إن أنت والله جرنين أو جوار عادة أو دم تقنع أي جوار كسر بحذي جرنيس دوتنا جوار واحد لوين حد ويس تكتبتي كلها قصة واحد قليل هذا سوق الحديث أي كدكتي يعني you can imagine الله نعم يكون جرنا يا نعم ما تجيبه
بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 نبسك عندها سقطت بسم الله الرحمن الرحيم نام هذه با ناياه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نام هذه با نام حق دعي ناياه الدنيا الدنيا نا إلى قرح تكان بيت الله ناياه ناك تقرح بدن اللي تكان إنك تسوي ستوي نوال حتى نسوق عشان برس وحق دعي waxay naagtaasi inta su-aalood ay sukay daba dhigtay bay tiri intii reer meesha taagnaa yacni maryaha kaa daadan lahaa bay tiri waa shoog saasoo eegbit hareerahaga dadku may maqlayaan gaalada hareeraha ka taagan tolo may fahmaysaa waxay ku hadlayso waxaan ku yidhi bay tiri maxaa dhacay naayaahe subxaan allah nawaal maxaad soo gashay naawalaal de naga qaybgeli marka dambena waxay ku leedahay mataqaana waxaanaad samaysay walaal de naga qaybgeli anaga qarsane eesaan ku galay nawaal maxaad naayawal nawad dhalin nawal bars baa kugu dhacay si walba dhulka ila dhacday si walba dhulka ila dhacday anoo marar dilaacsan waxay tiri meel la saro aan lahayn oo waxay tiri nafta iga dhacsan tahay waxay tiri meesha ka dhaco walaal marka waxay tiri walaal I know bay tiri aniga because codad laygu soo abuuray bay sidii leeyahay bay tiri guriga leeyay laygu lahayd tiimadoway waan waxaan isiri bay tiri waxaan codadan bal iska reeb waan iscadeey laakiin se waxay tiri waxa igu daran bay tiri Soomaalida intii taqaanayba mar alaalimka arkaan bay tiri afka soo kala furanayaan baad Soomaali kale iga qabayaan xumadooda iyo su'aal xumadooda iyo edeb daradooda iyo afkooda waxa ka soo baxaya oo aanay u fiirsan bakala iga qabo kii garanaya ee hada one day ahad meel isku arkeen berigay madoway kay one day meel isku arkeen buu waxay tiri afku soo kala furanaya alla naa gabadha meel ku arkay madoway maxaa ku dhacay waxay tiri markaas su'aalaha waxay soo galayeen yaab kale iyo amangaa kale iyo anshax xumada iyo waxaan lagu dirsan inaad daf soo tiradeed ka jawaabtid ma fahantay dadka mid baan sheegaya qof walba oo bila aadan muraayad gurigooda taala muraayad waa haysta ama ha xumaado ama ha madoobaado ama ha buurto ama ha dhuubto ama ha diifsanaado ma kula tahay qof aan gurigiisa markuu soo baxay muraayadda intii surtaaga isku daawan oo aan is ogeyn siduu u egyahay ayaa dibadda soo baxay waa maya marka adiga maxaa booska kaaga bannaan muxuu yahay inaad dibadda inteed qofka bilaadanka ay soo taagtid maanta oo dhan allah naawati wuu madoobaad waad diifaysan tahay maxaa wad xumaatay waad buuratay waad dhuubatay diifaa kugu taalla maxaa kugu dhacay midda kale kelmaddan maxaa kugu dhacay runtii waa kelmad aad iyo aad u xun u fool xun weeyaan ma fahanteen inaa kelmadda oo kaliya qiimaysaan oo mataqaanaa kafadda saartaan ayaan u baahanay horta maxaa kugu dhacay qof markaad ku leedahay qofku ma wuxuu kugu yiri waxba igu dhacay qofku ma ku socday qofkii ooyaya oo wadada cararaya oo barooranaya la ba'ay waxba igu dhacay ma aragtay no ma arag marka maxaad ku keentay qof dhan oo soconayo bilaadan intaad ka soo horbaxday inaad ku tahay maxaa kugu dhacay maxay tahay ma afa waxay igu dhici lahayd hadduu kugu yiraahdo qof ka waran maxaa kugu dhacay maxaa igu dhici lahaa waxa igu dhici lahaa maxay tahay ma afa maxaa kugu dhacay maxay igu dhici lahaa waad yara madwaatay la hawla wala quwwati waad dhuubatay waad buuratay is that none of that is your business do you think qofkan inaanu muraayad isku sheegin gurigiisa ka soo baxayaan ogeyn hadduu madowaaday hadduu dhuubtay hadduu soo doono noqdo difaysan yahay inaanu ogeyn inuu qofkan isa soo daawaday ya marka anigu waxaan u arkaa anshax xumo iyo edeb darro geto su'aalaha waxaa la yiraahdaa su'aalaha dibjirta su'aalahan meel alaaliya meel ay u socdaan dibjirta qaar baa sharaf iyo karaamo laho akhlaaqdooda iyo edebtooda adiyaba sidoo weligood yaallood baan mataqaanaa dadka hawlahooda kusoo dhicin laakiin su'aalaha caynkaas oo kale waa su'aal aad iyo aad u edeb daran ma fahantay saddexdaa aan idinla qaybsaday waa saddex ka dambeeyey habeenkii dhaweytoole barnaamijkan ka hadlayay ee yaabka iyo amankaaga lahaa iyo Soomaaliya waxyaabaha afkeena ka soo baxay inaan ka tarooshaan ya su'aalaha qaar dadku weydiinayaan is not your business ma fahantay qof waad ka soo horbaxaysa aan ku aqoonin markii ku bilaabaysa yaa tahay qolama tahay ninkaaga qolama carruurtaadu imisa carruur dhashay imisa nin baa ku qaba ma ninkii ugu horreeyayba maxay imisa carruur ka dhalay miyuu kaa tagay miyuu ku furay muxuu ka shaqeeyaa guriga degantii waa xagee hooyada waa qolama ayeedayee xageed ka timaaday xageed deganaan jirto waxaasoo dhan is not necessary inaad qof bilaadan markii weydiiso midda kale waxaad ka xabxabinaysid ka faa'iidaysaa aan bagaraynba I don't know waxaad ka helaysid ka faa'iidaysaa marka qof bilaadan intaas soo su'aalo inta weydiisay information madax ku qabatay la dhaqaaqdo waxaad ka faa'iidaysaa mid kale aan idin raacinaya ku soo gabagabeynaya waxa weeyaan Soomaaliya mashquulka faraha badan la joojiya
qof la aadana kaa soo baxay Soomaaliya waxa weeyaan qofka Soomaaliga inta uu ku salaamayo waxa weeyaan ilaa iyo tan iyo cid qofka bilaadanka kale ku maqlay ku mashquulsan lugtiisu eegaya ruugiisu eegaya ishiisu eegaya maxay uu eegaya xagan uu eegaya waa fiicantiin xagaad sidin carruurta sayta haye xagan uu eegaya subxaan allah hadda markuu saa uga dhaqaaqo ayuu telefoon diraya ama ay telefoon diraysaa tiiba halkan iga soo baxdayo ilaah baan ku dhaartay dad ogaantahay say tahay gaba haysidatay waxay ahaana walaalahay way dayaxantay abaayadu dhinacaas oo dhan way go'od maxay tahay na way booratay alla bisinka ina wanaarkii way booratay nahada maxaa ku dhacay alla bisinka nahada daaminkii oo dhan baa go'ayo labadii daamba waxa ka soo baxay walaalay waxaad yaabisna walaal way difay nama green bay weyd alla way silacday هذا جهاد دمبي يا laga yaabo adiga inay labada go'aan ku go'aan laga yaabo adigu inaad deefaysan tahay laga yaabo adigu inaad silacsan tahay laga yaabo adigu intaad iyada ka eegisid ka sheegisid ka baadhisid min adiga tahay ma fahantay laakiin aanad suubin laakiin haddana aanad ka helin oo aan jeclayn in laga hadlo oo telefoonada lagu garaado laga mataqaanaa faalloodo ila waa faalle telefoon qofka loo diray in laga faalloodo inaad jeclayn ma fahantay saddex qof ama afar qof oo Soomaaliyeed hadday isugu yimaadaanna sidii ku heshiiyeen way adagta maalinta ugu horeysa waa muxubiyi kalkacal waa la isku soo yaacaya waa la isku dhagaya alla bisinkaay waa inagiye fareeno lugaha iyo meel walba la iska nukanaya lawo ka bacdi xadarka mid walba soo goonidiisa fadhiya afka taagiyo caaytamaya darkiisa quality very very low quality no respect no xuduud do you know why waxa la isku caayim garanaysaa Soomaalidu hadday meel intay isugu tagto ay markiiba u kala boodo oo markiiba ma taqaanaa cadawga isugu noqoto markay isu daba gasho ma garanaysaa xuduud malaha daarsina xuduud wax personal la yiraahdo iyo wax la yiraahdo ma taqaanaa professional good oo lagu wada shaqeeyo ayaanay lahayn malaha qofka bini'aadamka Soomaaliga maanta markuu barto maanta wuxuu doonayaa personal life kaaga inuu daf yiraahdo hadduu daf odhan waayo inuu ku caayo marka dad sidaa isu dhex kala sidaa isu dhex kala personal life sidaa isu dhex kala ilaa iyo sariirteeda waxay samayso gabadha maanta markay is arkaan is bartaan gurigeeda ugu timaado waa inay uga warantaa uga sheekaysaa ilaa iyo ninkeeda ilaa sariirteeda waxaa ugu dambeeya laga hadlaa oo ugu xun waxaa laga hadlaa waa sariirteeda iyo ninkeeda gurigeeda waa inay uga warantaa markaa nolosha idin hadhay maxay tahay personal life ma jirtaba that's why ayaa marka la isku dhacay isla markii marka la isku dhacana mid walba goonidiisa u fadhiisanaya wuxuu ku leeyahay anaa aqaana yes waa taqaana because waxa la leexay kala hadhay waa iska yarba personal life-keedii wax walba fooday ka saartay ku sheeg waxa la leexay ka qarsatay ma jirto marka waa taqaana yes you can talk about waa ka hadli kartaa tii kale way taqaana adigana waa lagu yaqaana yes because waxa la leexay la hadhay iyo waxaad qarsatay ma jirto marka dignity baa la yeeshaa xitaa dadka bilaadanka hadda isu imanaysaan isbaranaysaan waxaa la hadhaa dignity baa la yeeshaa qofku waa inuu bareega isaga qabtaa qofku waa inuu dareemo inuu qof bilaadan tahay xuduud aad leedahay ka joog waana tiraad gurigaaga cid walba inuu kusoo ifaad galaysid maaha kusoo ifaad galayo gurigaaga maaha inaad maxay tahay aad u furtid ilaa iyo maxay tahay meel walba it's not good marka waxaan leeyahay kala saara personal life-ka iyo arrinta guud xitaa haddaa wax ka wada shaqaysanaysaan haddaa dan wada qabsanaysaan haddaa hawlo ku leediin hawlihiina guud ka ekaada laakiin ha isula dhaadhicinayna personal life-kaaga weligaa laha qofna albaabkiisa looma furo no aad baan salaamay dhammaantiin bixir fadlan ma rajinay markasta iyo marba joogtaanba daywadka waxay la tahay in intan wacyigelin inaan noqoso si walba fanina ay noqonayso mar walba ay galayso qayb baan rajinaya